يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabtay sharafta laygu xiran sidee tihiin miyay fiican tihiin rabadaan mubaarak. maanta waxaa idinla wadaagaya afurkaan shalay toole ku afurnay anaga rabadaanta axadii noo bilatay shalay hal maalinaa dadka ka dambeynay marka shalay toole maadaama rabadaanta noogu horeysay cunto oo macmacaan iyo saambuuso iyo wax la shiilshiilay ku jiraan maanan sameynin sababtoo ah anakoo sooman oo gaajaysan oo soonkii noogu horeeyo haddii aan wax saliid iyo macmacaan iyo waxaas cunno cilad buu nagu sameeyaa. marka waxaan shalay toole sameeyey cunto yaro iska fudud oo healthy ah oo wax dhiba iyo cilada nagu kicineynin. marka shalay afurkaan sameeyey wuxuu ahaa shawarma, shurbad iyo khudrad iyo fruitis iyo cabitaan iyo waxaas. soo ilaa arkasaan u habeeyey afurkii shalay toole daawasho wanaagsan. asxaabteeda qaaligaasa maanta hore idinku soo sheegay waxaan sameyn doonaa chicken shawarma. marka ugu horeyn waxaan rabaa inaan digaaga diyaarsado oo aan xawaashkiisa iyo wixiisa mariyo. marka halkan digaag baan soo dhigtay amba chicken. digaagan waa digaaga shafka ku yaala wax lafa ma laha waa boneless amba waa jiir kaliyaata. marka digaaga waxa ugu goynayaa saa u jeedaan waa si yaroo dhuudhuuban oo khafiif ah oo gaagaaban. markii uu digaagii aan goyntiisii dhameeyay halkan waxaan soo dhigtay waxaa waaye bileer oo xawaashiyaan kusoo shubtay madeebad maran saliid iyo caano dhanaan amba kadh. marka halkan xawaashida igu jira waxay ka kooban yihiin halkan waxa igu jira waa xawaashi aan cunto kasta u isticmaalo magaciisa waxaa la dhahaa mandi spices Arabian mandi spices. halkan waxa igu jira waxaa waaye toon. halkan waxa igu jira waxaa waaye ginger amba sinjibiil. halkan waxa igu jira waa basbaas case. halkan waxa igu jira paprika iyo basbaas case isku mid maaha. paprika waxaa waaye barbarooni shiidan basbaas case oo basbaas case. halkan waxaa igu jira parsley. halkan waxay taalo wax yar oo milix ah amba cusbo kolba saa u taqaanaan. soo xawaashaashii waxaan ku shubanayaa madeebada maran oo aan halkan kusoo diyaarsaday. kadibna waxaan soo qaadanayaa waxaa waaye saliidii wax yar oo saliidaan ku shubayaa ilaa iyo mulqaacad saliida qaada saliida meelahaas. haddana waxaan soo qaadanayaa kadh waxa weeye caano dhanaan yogurt ciir kolba saa u taqaanaan ayadana mulqaacadaan ku shubtay meeshii. kadibna intan oo dhan aan si fiican isugu walaaqaya. waa xawaashaashii waa milixdii waa saliidii waa caanihii dhanaana si fiican isugu walaaqaya waan isku dhex gelinayaa. kadibna waxaan kusoo shubayaa amba aan kusoo ridayaa digaageennii amba dooradii amba chickenkii aan soo gogoostay ayaan kusoo dhex riday. kadibna intan aan si fiican isugu qasaya aan si fiican isku dhex gelinaya. waxaa la rabaa digaagu inuu xawaashayaasha iyo waxaasoo dhan ay si fiican u gaaraan. markaasaa ujeedaan aan isugu dhex geliyey. kadibna waxaan soo qaatay bac afkaan kaga xidhay talaagadan wax yar gelinaya ilaa iyo saacad 2 saacadood si xawaashiga iyo digaagu ay isku soo dhex galaan insha Allah. guys inta oo chickenka uu fridge-ka igu jiro oo marination-ku uu dhacayo amba chickenka iyo xawaashidu ay wax yar soo dhex galayaan waxaan rabaa inaan sii sameysto shurbad. marka halkan waxaan kusoo diyaarsaday waxyaabihi aan ka sameysan lahaa shurbada. halkan waxaan kusoo googoostay wax yar oo basal ah wax yar oo kaaroot ah wax yar oo baradho ah. halkan waxaa yaala cadas. halkan waxaan kusoo tumay waxaa waaye kabsar caleen. so intaasaan ka sameysanaya insha Allah shurbada maanta. ugu horeyn basasha ayaa waxaan kusoo shubay distida kadibna dabka ayaan soo saaray. haddana saa ujeedaan waxaan kusoo daray waxaa waaye wax yar oo saliid ah. marka hadda waxaan sugaynaa intay basashu wax yar ay kasoo shiilmayso amba ay wax yar kasoo casaanayso. soo basashii markii wax yar soo shiilanto ay wax yar soo casaato waxaan kusoo darsanaynaa baradhadii iyo kaaroodkii iyo kabsartii aan soo tumay. kabsarta wax tooni kuma jirin waayo toon maanan haysanin mid powder baan mardhow ku dari doonaa insha Allah. marka waa kaasa intana wax yar isku walaaqay. kadibna hadda waxaan kusoo darsanayaa cadaskii amba lentis. cadaska nooca isticmaalaya waa nooca orange-ka ah. kadibna haddana si fiican intaan isugu walaaqaya. kadibna waxaan kusoo darsanayaa xawaashiyaasha intii aan ku daray shawarmada baan ku dari doonaa insha Allah. waa Arabian mandi spices wax yar ah wax yar oo milix amba cusba wax yar oo toon ah wax yar oo sanjabiil ah wax yar oo parsley ah iyo waxaan kusoo darsanayaa basbaas case wax yar oo basbaas case ah. kadibna si fiican ayaan intaan isugu walaaqaynaa
waxaan kaloo kusoo darsanaya waxaa waaye biyo. Waan soo biyeynayaa kadibna waan daboolayaa. Waxaan sugaynaa intan si fiican insha Allah isugu soo bislaanayso. Kana raali noqdo fiidiyowga boobsiis ama degdeg baan ku furay si uusan idinku dheeraanin. Waatana shurbadii ayaan dib ugu soo laabanay. Muddo ilaa 40 daqiiqo bay dabka saarnayd oo ay karkaraysay. Marka waan fiiriyay cadaska, baradhada, kaaroodka waxa dhan way bislaaneen. Milixdii, xawaashida wax kasta waan u jeekimay. Markaas u jeedaan shurbadeeda biyo badan baa hadda ku jira. Mar raba biyaha inaan ka qalajiyo. Waa markaan ridqaayo waxaan rabaa inaysan iga adkaanin oo ay noqoto shurbad oo dhexdhexaad ah. Markaas u jeedaan halka mishiin baan ku haystaa. Mishiinka waxaa lagu ridqaa hilibka, khudradda, fruutyada, waxyaabahaas. Marka mishiinkana waxaan ku soo ridqay shurbadii aan ku soo ridqay. Marka waa kaas saasay u eekaatay shurbadeennii smooth maasha Allah wax buurbuura waxaas kaga maanan soo tagin. Marka hadda waxaan soo qaadanaya waxaa waaye distidii waan soo dhaqay. Marka hadda waxaan ku soo wareejisanaynaa shurbadii aan soo ridqanay. Waa kaas wax buurbuur waxba kuma jiraan. Waa shurbad si saafi aan u soo ridqay kaaliska arag ah. Mana jilicsana xoogna uma adka dhexdhexaad bay iitisa u jeedaan. Marka waa kaas shurbadeedii saasay diyaar ugu tahay. Badhow toolaa furka markaan gaaro dib baan u yara diirin doonaa insha Allah. Soo hadda waan daboolayaa. Imikana chickenkii aan fridge-ka geliyay ayaan fridge-ka ka soo bixiyay. Haddana bacdi ayaan ka furay. Halkaan waxaan ku soo diyaarsaday taray iyo warqad. Taraygu waa kan oo ovenka la galiyo iyo warqad oo ovenka waxyaabaha lagu galiyo aan soo dul dhigay. Kadibna saa u jeedaan waxaan ku soo dul shubay waxaa waaye chickenkii. Chickenka waxaan rabaa inaan ovenka geliyo. Aniga markii uu digaag shiilaayo waxaan jecelahay inaan ovenka ku sameeyo. Waa kan ovenka igala macaan ka daawaha lagu sameeyo. Marka waa kaas ovenkaan gelinaynaa. Dabku waa kor iyo hoos. Temperature-kan wax ku sameynayo waa 250 Celsius. Inta uu chickenku ovenka ku jiro waxaan sii diyaarsanaynaa alaabta oo shawarmada dhexda uga shubi lahaa. Marka halka waxaan ku soo diyaarsaday waa jeex oo salad ah, hal xabo khiyaar amba kukumar ah iyo hal xabo basal. Marka waa kaas saa u jeedaan ayaan u googoostay. Saladka siro waxaan u googooyay khafiif ah. Khiyaarka saasaan u googooyay. Basasha cadna waa kaas saasaan ayadna u jarjaray oo dhuubka khafiifka ah. Marka waa kaas basashii iyo saladkii iyo khiyaarkii saasay diyaar iigu yihiin ayaguna. Guys waa kana digaagii amba chickenkii ovenkii waan ka soo saaray. Wuu bislaaday maasha Allah. Saa quruxda badan uu ku soo baxay. Udgoonkiisa caraftiisana lagama sheekayn karo. Marka waa kaas digaagiisa ayuu diyaar noogu yahay. Haddana waxaan rabaa inaan shawarmadii duubo amba aan laabo. Marka shawarmadu wixii aan ku dhex dardar lahaay oo dhan halkaan ku soo diyaarsaday. Halkaan waxa igu jiro waa mayonnaise. Halkaan waxa igu jira salar, khiyaar amba kukumar iyo basal cad intii aan soo googoostay markii hore. Halkaan waxa igu jira chickenkii aan foornada amba ovenka ku soo sameeyay. Halkaan waxa igu jira chapati. Chapatidan anigu maanan sameynin ayadoo diyaarsan oo sameysan aan soo iibsaday. Kaliya waan yara kuleyliyay uun. Anu dhulkaan joogo cimiladiisu aad bay u kulushahay. Marka daaslo chapati waxaas dub naqaska igu dhagaayaba. Halkaan waxa ii yaala ketchup. Halkaan malqacad. Halkaan waxa ii yaala baalkii oo aan ku duubi lahaa shawarmada. Ugu horeyn waxaan soo qaadanayaa warqadan cad. Warqada oo lagu galiyo ovenka alaabaha. Marka waxaan rabaa inaan ku duubo shawarmada si shawarmadu iiga kala daadanin. Kadibna warqadii waxaan soo dul dhigtay chapati. Chapatida waxaan ku dul shubay mayonnaise iyo ketchup. Kadibna mayonnaise iyo ketchup-tii hareeraha chapatida oo dhan wada gaarsiiyay amba aan wada mariyay. Kadibna chapatida centerkeeda waxaan soo dhigay saa u jeedaan waxa waaye xoogay salad ah. Haddana waxaan sii dul dhigay xoogay yar oo basashii cadayd ah. Haddana waxaan sii kordhigayaa waxa waaye khiyaarkii amba kukumarkii. Haddana waxaan sii kordhigayaa waxa waaye chickenkii amba digaagii amba dooradii kolba saa u taqaanaan oo aan soo dubnay oo ovenka aan ku soo dubnay ayaan sii kordhigay. Haddana waxaan digaaga korkiisa sii saarayaa amba aan marinayaa waxa waaye mayonnaise-ki cadda oo markii ugu horreysay aan idin soo tusay ayaan saas u marinayaa. Haddana waxaan sameynaynaa waa laabaynaa insha Allah. Sabaayad saa u jeedaan ayaan u laabaynaa. Daawasho wanaagsan ayaan idin leeyahay. Isla socod wanaagsan asxaabtida sharafta leh.
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. So guys, shawarmadii markii aan soo laabay sida quruxda badan la aad u jeedaan ayay ku soo baxday maasha Allah tabaarakallah. Hadal ma karaysaa idinku dhahay. Marka shawarmada qaybtaan soo laabay halkan ayaan soo dul dhigtay. Waxaan kaloo soo ag dhigtay waxaa waaye ketchup iyo mayonnaise. Marka shawarmadii saas ay diyaar iigu tahay ayadu. Halkan waxa ii yaalo waxa waaye laba jeeg waxa igu jira biyo cad oo qabow, jeega kalena waxa igu jira cabitaanku waa qare amba xabxab aan soo shiiday amba aan soo ridqay. Marka qarihi amba xabxabkii had waxaan ku daray baraf uu qabow yahay laakiin baraf zaaidan ku daray. Marka eegana tareygaasaan soo dul dhigtay. Halkan waxa ii yaalo waxa waaye grape amba cinabka nooca akhtarka ah iyo waxa waaye qare amba xabxab aan soo googoostay labada nooc fruitka halkaan ku soo diyaarsaday saa u jeedaanba. Imikana waxaan rabaa inaan miiskii aan cuntadii keeno oo afurkii aan ku diyaariyo. Marka waa kaasa bileedadii iyo wax weey alaabtii meeshii aan dhigdhigaaya insha Allah. Markii aan meeshii miiskii aan soo diyaariyay oo alaabtii wixii oo dhan aan soo dhigay sida quruxda badan la aad u jeedaan ayuu soo baxay. Maasha Allah tabaarakallah waxa waaye afur aan hadal kareynin. Intii haysata Ilaahay u barakeeyo, intii aan haysaninna Ilaahay ha siiyo aan leeyahay. Marka waa kaasa afurkeeni caawa saas ayuu ku soo baxay. Maasha Allah tabaarakallah. Waxaan rajeynayaa fiidiyowga inuu idin cajabin doono waad ka heli doontaan insha Allah ambaad wuxuu ka faa'iidi doontaan intaan fiidiyowga ku xigay ka kulmayno. Waxay ka tagayaa maca salaama Ramadaan wanaagsan.